madaxweyne xasan sheekh mar labaad baan talada ugu celinayaa fadlan isdhegeyso adugu doorashada Jubbaland kadib waxaa jiray khilaafaad fara badan marka adiga sidee u aragtaa arrimaha Jubbaland ka jira hadda arinta oo ku saabsan Jubbaland hadda waxaan su'aasheeda u dambeysay weydiisay waxaan jawaabteeda ku jirtay qawaaniinta hal ilaaliyo dalkani maalina dad Soomaaliyeed intii isku yimaadeen ayaa waxay ku heshiiyeen dalku inuu federaal noqdo heshiis loo dhan yahay marka Jubbaland waxa ka dhacay waxay tahay waxyaabaha dawladda aan uga ra'yi duwanay ka mid tahay Jubbaland waa dhisantay waa jirtaa constitution ay leedahay shacab ay leedahay waxba ay leedahay qalad ma ka jiro sax ma ka jiro waa meel kale oo gooni ah waa su'aal kale laakiin jiritaanka state-ka ama Jubbaland ama Koonfur Galbeed ama inay jirto oo sida dastuurku wuxuu dastuurku ogolaaday doorashada inay is doortaan iyaga qaabayaan la ogoliyay intaas kugu filan adigu isdhegeyso inta maanta dhan warkaaga la celinay adigu isdhegeyso wanday gacmo daahira wax daahiriya leeyahay dawladdu hadii qawaaniintii ayadu ay ku cayaarayso ku tumanayso barbar marayso sidee dad kale u dhihi kartaa muxuu ahaaye jalamadu digsigay leedahay waa madow yahay diyo kala soo noqon mayso xigmadii ahayd dawladdu qawaaniinta ayada ha ilaaliso markaas laga dhageysanaya qofka qaanuunka ku qaldamaya xataa inuu qaldan yahay laakiin dawladdu ayadaba qaanuunka ku qaldan qof kala qaldan cid ka dhageysanaysa ma jirto Jubbaland waxa ka dhacay ilaa maanta ka jiro oo una qabataynta iyo muxuu ku xadgudub meel ay ka qoran tahay qaanuunka Soomaaliya sheegay ma jirto dawladdu inay gobollo gaar ah target garaysa lama tii karo lama yeeli karo lama siin karo looma ogolaan karo la waxay kale inay tiraado dawladdu Jubbaland ajnabi u adeegsatay برشر عالمي وأديكستي هنا قبتين محوها إر يقول يبطء صارت أنت صارت محامرك دولدي سيدا Jubbaland دولد وقطعوا مسألة دولد أيدا دولد قرنك أيدا دلك دولد إن قعدتك قعنت ما حكى صارت إلى على دورته حساسيات بدنا جرو باغ بدنا جرو دتك إن الله ما نور بباغ نوع على الدنقية سحمة Jubbaland دولد فدرال كاوي كجردان تاي shir Soomaaliyeedna aan isku nimaadno Jubbaland hadii la yiraahdo gobol diyaar bay naga tahay waan dhigaynaa hadii loo baahdo laakiin goboshaas aan ku baaqaynaa Puntland baa ku baaqday inay gobol la isugu yimaado odayaasha siyaasiyiinta mucaarad Soomaaliyeed baa kulligood go'aankaas qaba wada hadal baan diyaar u nahay in Soomaaliya isu timaadaan diyaar u nahay inaan qof la hadalama min Soomaaliya imaan aysan rabnaa inaan isugu nimaadno lagu wada hadlo adigoo isticmaalay khibradaada madaxweynenimo maxaa xal u noqon kara arrimaha ka jira Jubbaland wada hadal in la wada hadlo waxa la yiraahdaa xanaaqa walaalka galo xamanku galaayo intuu xanaaqo isbuufiya marka waxaana looga bixiyaa leeyahay carabku in la hadla looga bixiya in la hadlo amal walaal xamanku galaa carabkana looga bixiya Soomaalidu kuma maada in la wada hadlo laakiin waxa waaye jawigi lagu wada hadli lahaa in la abuuro qof la leeyahay muxuu ahaa diyaarad kuma imaan karto oo kii jiranaayo caafimaad xamar u soo doona lahaa ma tigi karo oo kii xamar ka tigi lahayo business meesha ku lahayo ma aadi karo oo muxuu ajnabi muxuu xagga laga cadaadiyo xagga laga riixo leeyahay goormay hadda mesela shira biri meeshan ka dhacayo maxay uga maqan yihiin dawlad goboleedyada qaarkood daran ay qabaan iyo mushkil ay qabaan uga maqan yihiin marka wada hadal dawladda xalka kaliya jira in la wada hadlo waa xal ka sokeeyo xoog ma jiri karo ma imaan karo ma daaweyn karo hadii la isku dayo uu ka sii daraa uu ka sii xumeynaa xaaladda meesha ay joogto in la wada hadlo waa si loo wada hadlana jawi lagu wada hadlayo mas'uuliyadda koowaad ee dawladda saaran waa cid kale ma saarno jawiga lagu hadlayo dawladda federaalku saaran yahay inay abuurto qabka madaxdeena qaarkood waa inay hoos u dhigaan oo ay dadkooda iyo deegaanadooda maslaxadooda inay awgeed inay qabkooda hoos u dhigaan la hadlaan maxaa dheerad maxaa rabtaa inay dhahan umaleyn maayo madaxda qaranka qaarkood diyaarad inta qaataan biri hadii ay Jubbaland ka degaan in maxaan ku raadaay ceeb iyo cilad ugu imaan karaamo iyo sharaf iyo waxa uga imaan lahaa iyo wanaag iyo mushkilad oo dhamaato xallisato wax ka dambeeyo oo muxuu ahaa Jubbaland ay sheegaleed ma jirto hadii madaxdii iyo dawladeena federaalka socoto meeshii ay tagi lahayd xataa ama marka niyad samaanta dawladda xaggeeda waa inay ka timaada reer Jubbaland waxaan leenahay wada hadal jawi lagu wada hadlo u yimaado nuglaada hadii nuglaa waayeen waa qaldantiina leenahay waa u sheegaynaa anagu mar walba ma aha muxuu hal dhinac ma ahayn danta iyo maslaxadda ummadda ama deegaankaas ha jirto ama deegaan kale ha joogto yaan mar walba rabnaa inaan ku hadalno